haddii aad go-aan gaadho oo doonayso inaad wax samayso waxaas wuxuu doonaba ha ahaado mashruuc ganacsi ha ahaado qof aad doonayso go-aan inaad ka gaadho ha ahaado waxbaad rabtaa yacni inaad samayso talo ayaadna u baahan tahay talada ha badinin oo dad fara badan ha la tashanin waayo mararka qaar qofku intuu talada badiyo ra'yiyada faraha badan iyo talooyinka badan ee la siinayo ee dadka uu weydiistay kaga imanaya waxay ku furaan buuq kadibna qofkaasi go-aan inuu qaataa ku adkaata ama ugu dambeyn go-aan qaldan buu qaataaba sidoo kalba wax u fiirinaya taladan ma raacdaa siduu isu leeyahay qof walba wuxuu leeyahay asxaabtiisana waxaa ka mid ah hal qof oo ah saaxiibkiisa khaaska oo la tashado oo wax u sheegto qof marka haddii adigu aad saaxiib la tahay aad ku tuhmaysid waxoogaa qofkaasi qof xakiima inuu yahay oo caqli iyo garaad aad ka faa'iidaysood isleedahay haddaad wax usoo gudbisatid qofkaa waxaad ka faa'iidaysaa talo wanaagsan oo yacni lagu najaxay qofkaasoo keliya inaad la tashatid baa kugu filan haddii aad ku qasbanaatay inaad qof la tashato ama asxaabtaada ha ahaadaan waalidkaaga ha ahaadaan dadka dee kugu hareeraysan ee xidhiidhada kala duwan kula leh ha ahaadaane la tasho dad laakiin mar walba waxaad isku daydaa taladan aad dadka weydiisanaysid iyo la tashigan aad samaynaysid inaad yaraysidoodan aada u badinin yacni mar walba oo la tashigaaga uu bato dad badan la tashatid mashruucaaga uu kaa fashilmaya mashruucu doonaba ha ahaado qasab maa mashruuc ganacsi inuu ahaado maalan qof uu xidhiidh idinkala dhexeeyay baabad isku dhacdeenba xidhiidhku ama lamaanahaaga qofkaasi ha ahaado ama qof sheeka iyo wax idinkala dhexaysay ha ahaado ama qof asxaabtaada kamid aad rabtid inuu noloshaada aad ka saartid ha ahaado la tashi fara badan haddii aad samaysid talooyinka faraha badan iyo ra'yiyada faraha badan ee kugu soo noqonaya waxay kuu keenayaan wareer iyo go-aan inaad qaadan kari weydid marka la tashiga faraha badan ma wanaagsana la tasha hal qof ood ku tuhmaysid caqli iyo xikmad si fiicanna aad u garanaysid adigana si fiican kuu garanaya wallaahi barnaamijkan ani waxaaban isiriba baraankiga wixii la dhahayay armuu yahay oo waxaan yacni wax runa un ahayn ninkii lalahaa waliid ee gabadha aflagaadeeyay gabadhii ahayd salma barnaamijka dagaalku markuu dhacayay halkuu dagaalku ka bilaabanaya yacni sababtiisa isagu lahaayee gabadha aflagaadeynaya codka sirta laga keenayay iyo waxaa dib barnaamijkii haddana loogu yeedhay gabadhii ahayd salma ninkii waxaa lagu yiri marka la weydiiyey su-aale maxaa kugu kalifay waxaan inaad samayso gabadha sidaasoo dhan aad u aflagaadayso ninka gabadha dee suxun buu aflagaadayo sharafteed iyo cirdigeedu wax ka sheegay waalidkeed baa deeriyey ilmay beri iska soo tuurtay ilmo sharci darra ahay dhashay yacni uurkiisa yeeltay balaayo iyo waxbuu ka sheekay fadeexat alcaalamiina ma ogtihiin kadib ninkii wuxuu yiri wallaahi markaa waan xanaaqsanaayo qofku dee markuu xanaaqsan yahayna afkiisa wax isagoo dee siduu isu qalqalooyo اختي هي المشرفه على صفحتي اتصلت فيني وكنت معصب. شيء طبيعي ان الواحد بيحكي شو اللي صار. هالشيء اللي المهم بكمل. هالشيء اللي صار الواحد في لحظه غضب يقدر يطلع اي شيء من فمه فعادي. واظني في دام ان الاشياء هذه بتنسمع حطوا كل شيء يعني ما dhihi karaba sidii uu lahaa gabadhii intay yaabtay meeshii fadhida salma ahayd bay waxay tir horta bal si caadi ah u hadal sida nimanku ay u hadlaan waxay tir waa maxay gacmaha saad leedahay sida isu kala qalqaloocinaysid sida waxay tir sida ragga u hadal de maxaad sida dumarka oo kale ugu hadlaysaa wuxuu yiri marka maana dumar igu sheegaysa haddaan anigu dumar ahay wuxuu ku yiri marka adigu maxaa tahay markaas sida anigu gabadh baan tahay ma hubtaa inaad gabadh tahay ma hubtaa markaas tiri haa waan hubaa inaan gabadh baan ahay markaas wuxuu yiri insha allah gabadh baa tahay gabadhii waxay tiri marka ninkii aan isku wadanka ahayn aan isku wadanka ka soo jeednay aniga dhiigayga ahay difaaci lahaa hadduu sidan ila dhaqmayo saan yacni ii ahaanaysanayo ii bahdilayo wax barnaamijkan aan ka faa'iideyna ma garan waxaan madax xanuun ahayn oon meeshan ka faa'iideyna ma garanay sidaasay barnaamijka kaga baxday ma garanay marka inay ku soo noqotay in kale laakiin markaas sidaasay kaga baxday oo ninkan dee siduu uu hadlayo gabadha ula hadlayo baa waxay tahay basi ahaaniyo baxdilaa dadka dhan marka waxay weerar ku soo qaadeen la yaaban yihiin ninkan iyo gabadhan la leeyahay Samiira qaar oo isaga taageerayaashiisa ahna waxay weerar ku soo qaadeen gabadhan la leeyahay oo is aflagaadeynayaan Salma laakiin dadka barnaamijkan sameynaya ee soo deynaya kuwaas u baahan wax weerar ku qaada sababtoo codkan meesha ay keeneen soo daayeen baahiyeen horta waa cod siro idab dariif oo xumi akhlaaq xumo dhan baa ku jirta ninkan sida uu gabadha ula hadlay markii hore ee kabta wajiga lagaga dhufanay sidan hadda uu u hadlayaaba ani igala sii qaldanba